laba kuuliyadood oo ardaydu iyagoo dhiganaya ay shaqaysan karaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما خيارتا واني سلامي السادو تيبا channel كان waxaan ku faa'iideeyaa oo aan ku dhigaa waxyaabo badan oo ganacsiga ku saabsan intii tabartayda waxaan jecelahay walaaladii iyo dadkayga la wadaago channelka maanta waxaan la wadaagi doonaa insha Allah muuqaalkan laba kuuliyadood oo ardaydu iyagoo dhiganaya ay shaqaysan karaan aad iyo aad oo aan ku dhiirigelinayo inay ka faa'iideystaan muuqaalkan oo ay shaqaystaan maxay yihiin labada kuuliyadood taasad isweydiinaysaa malaha jawaabtu waxa ay tahay dawaan labadan kuuliyadood ama labadan takhasus ama labada faculty soo taqaan waxa weeyaan kuuliyad koobaad hadan ku horeeyo waa kuuliyada computer science kuuliyada computer science waxaad awood u yeelan kartaa adigoo arday ah oo sanadkii koowaad jaamacadda ku jirayta inaad shaqaysato oo aad si fudud ku shaqaysato sababtu waxay tahay waxaad heli kartaa skills yar oo jaamacadaad ka barato tusaale ahaan skills kasdan one example ka bixiyo maanta haddii lagu soo baro tusaale ahaan sida computerka loo format gareeyo ama computerka windowga looga bedelo ama troubleshootkiisa waxyaabo kamid ah ciladihiisa aad soo yar barato waxa weeyaan isla maalinta aad baratay aqalka markaad tato haddii aad shaqada hesho waad ka shaqayn kartaa waan huwa sababtoo ah cilmiga computerku ama takhasuska IT-ga in kaliya waxa uu baahan yahay waxaad dhigato inaad si fiican u barato bis aad ciladii aad aragtay ama dhibaatadiina aad xalin karto taasoo markaa aan oran karo waa fursad weyn oo ka banaan kuuliyadaas oo aysan lahayn badanaa kuuliyadaha kale sababtoo ah maanta kale haddaad doctor tahay ama aad kuuliyada caafimaadka dhigato suurtagal ma noqonayso maanta wixii aad soo baratay inaad farmasi kaga shaqaysaan taas waan hubnaa way adag tahay haddaba haddaad kuuliyada IT-ga dhigato ama aad dhigato sidoo kale computer science waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad shaqaysan karto adigoo arday ah oo aad cilmiga aad jaamacadda ka baratay iyo cilmi aad adigu isbartay maadaama maanta YouTube yahay jaamacadda dunida ugu qaalisanba sababtoo ah jaamacadda wax kasta jawaab meesh balse YouTube wax kasta jawaab baad heshaa waad aragtaa in anigoo isgaranayn laakiin haddana aan in la wadaagayo waxaan naftayda la jecelayn oo ah ganacsiga waxaan ka barantay iyo waxaan ka aqaanaba inaan bulshadeeda iyo dhalinyarta walaaladay aan fahansiiyo sidoo kale in kuuliyada IT-ga ama computer science waxaad faa'iido u yeelan kartaa inaad naftaada adigoon shaqo u hayn ama aan meel shaqo ka helinba waxa laga yaabaa qof aad u shaqayso inaad weydo computerka aad soo baratay maadaama adigu meel la fadhin dad meel la fadhiya jiro loo tago marka hayso oran saas yani adigoo gurigaaga jooga ayaad lacag sameyn kartaa oo waxaad IT-ga ku dhigatay ama computer science ku dhigatay sida database loo sameeyo sida website-da loo sameeyo sida loo develop gareeyo sida muuqaalada loo sameeyo yani waxaad tahay technology dhimaad baa tahay waad samaysan kartaa ganacsi waxaad sameyn kartaa website waxaad sameyn kartaa YouTube channel kaarkiis waxaad ku dhigi kartaa casharadii aad soo dhigatay lacag baad ka sameyn kartaa aqoontaadii oo aad adigoo dhiganaya ama wata aad lacag ku heshaana runtii waa guul weyn shirkadaad u shaqayn kartaa adigoo dhinac wax ka barta sababtoo ah imika xirfadda iyo shahaadada xirfadda qiimo badan qofka bilaaadmiga imika waxaa la yiraahdaa maxaad taqaanaa waxaad baratay halkaas ka dhigo shahaadooyinka halkaas ka dhig balse su'aashu waxa weeyaan maxaad taqaanaa haddaba maxaad taqaanaa hadday tahay wax walba dhigata taqaanaa haddaad tahay arday ku jaamacadeed ama arday wax barta sababtoo jaamacad kaliya wax laga barto maanta way badan yihiin waxbarashadu waa tahay kuuliyada computer science waxaan oranayaa waa kuuliyad fursad weyn ka haysata ardayga isagoo ardaya inuu shaqaysto kuuliyada labaad waxay tahay kuuliyada labaad waa kuuliyada education loo yaqaan waa kuuliyada macalinimada lagu barto macalinimadu waxay ku saacidaysaa inaad adigoo jaamacadda dhigta arday jaamacadeed adigoo aad haddana noqoto macallin مثلا waxaan ula jeedaa inaad macallin noqoto waxay kugu suurtagelin kartaa inaad qabsato
xurun bareefad adigu naftaada u aasaasato bareefad yar oo wax yar oo dhaqaale yar kaa gelaya 500 600 ku bilaabi karto arday badan aad u dhigto laga yaabo inaad jaamacadii waqti u weedo oo aad ardayda xoog saarto markaad aragto dhaqaalaha ka soo galay ama aad jaamacadii aad xidhato ama aad jaamacadii dib u dhigato ama aad YouTube ka barato ama online aad ku dhigato sababtoo ah waxaad bilowday ganacsiga hadaba waxbarashada markasta asaasi u tahay qofku markuu wax barto wax badan oo naftiisa kamida ya ama uu bulshada dhexdeeda ku dhex joogo ayaa wax ka bedelmay taasna waxay asaas u noqotaa waxbarashada marka kuliyadan labaad waa kuliyada macalinimada ama educationka waxay saacidaa in qofku isagoo ardaya uu wax dhigo hadii ay wax kala weydiitaa aqalada aad tagto oo aad ardayar ama laba yar iyada wax u dhigto waxay saacidi kartaa bishii aad ka qaadato kotabkaaga boqolkaaga ardaynimadaada kaafin kartaa sababtoo ah nin wax bartana waa tahay nin shaqaystana waa tahay adduunkan waxa loo wada xareeyaa ogow jaamacadda dhiganaysa xitaa ogow inaad u dhigato inaad berito lacag shaqaysato today hadii aad balbaadho marka labadan kuliyadood aad digato waxaad sameyn kartaa lacag adigoo arday ah haysodan arday baa tahay jaamacadda dabadeed baad shaqaysanaysaa muuqaalkaygu waxa uu maanta ku socdaa kuliyada IT-ga ama computer science-ka iyo kuliyada education-ka oo aan isleeyahay fursado badan ayaa banaan oo ay ardaydu ku shaqaysan karaan waxaad arkaysaa arday badan imika waqtiga ay wax baranayaan mooyaane waqtiga kale in social media ama kubad ama waxyaabo badan ku mashquulsan hadaba haddaad labadan kuliyadood dhigato waxaan aaminsanahay inaad ka faa'iideyn karto waqtigaaga inta jaamacadda ku qatay inta kale aad wax lacag soo saari karto inta jaamacadda dhiganaysana lacagtaad ka bixin karto naftaadana aad ku anfici karto ganacsina aad ku sameyn karto aad ku abuuran karto haddaad wax urursato sababtoo ah in qof wax badan haysta haddaad aragto wax yar oo la isku geeyay unba ka soo bilaabay waata muuqaalkayga intaas ayaan jeclaaday maanta inaan ila wadaago waxaan dhammaan qiyaarta channelka dadku cusubtiin please subscribe saaro si aad wax badan uga faa'iido sidoo kale gaarsii walaalada si iyaguna uga faa'iidaan muuqaaladan aan xaggan kulli nigu la wadaago waxaan nigaga tagayaa assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh